soo dhawaad saaxiibayaal meel walba joogtaan muuqaalkan kooban waxaan diirada ku saari doonaa Manchester iyadoo hogaamiye cusub yeelatay iyo caawa markii guuris ay ciyaari doontaa. Su'aasha la isweydiinaya waxay tahay tababare Almiron muxuu kooxdan kusoo kordhin karaa, miyuu wax badan ka bedelaan doonaa ninkii shaqadan laga raacdeeyay maadaama kooxdu xaalad xun ay ku jirto ayna fadhiso booska 13aad. Ipswich Town ay wajihi doonaan. Ipswich Town waxaa hogaamiye u ah mid ka mid ah caawiyaashii kooxda Manchester United, McKean, oo waqti badan joogay kooxdan laakiin isbedel badan ku sameeyay kooxdaasi guulana gaaraysa kulamadii ugu dambeeyay. Manchester macalinkan Almiron shirkiisii jaraa'idii ugu dambeeyay waxyaabo badan oo kaga hadlay ciyaartooyda iyo qaab dhismeedka kooxda, wuxuuna tilmaamay in isbedel badan la imaan doono isagana uu kalsoon yahay ciyaartooydiisana uu ku kalsoon yahay u joogtay isaga. Wuxuu yiri saxaafadda idinka kuma kalsoonidin ciyaartooyda aan haysto laakiin aniga waan ku kalsoonaa dhamaantood. Waa la arki doonaa sheekada sida ay noqoto iyo hadalka geesinimada oo ku hadla ninkan dhowr cadeynta badan ee Almiron. Waxyaabo kale isweydiinaya waxay tahay ninkan miyuu bedeli doonaa qaab ciyaareedkii kooxda ee Manchester Erik ten Hag? Taasi waxaa leeyahay wuu bedeli karaa maxaa yeelay formation ahaan waxa uu ku ciyaaro uu ka duwan yahay midii ten Hag. Maxaa yeelay wuxuu ku ciyaari doonaa 3 difaac oo ah mid kooxda aysan ku ciyaarin qaab ciyaareedkaasina uu ku cusub yahay ee caawa tijaabin doono hogaamiyahan. Ciyaartooy badan ayaan suuragal ah inay boos ka helaan qaarkoodna ay macalinkan fursad ka helin. Dhammaan macallimiintii kooxdan soo maray kulamadooda koobaad natiijooyin wanaagsan ay helayeen ama kulamadooda ugu horeeya. Ferguson oo ahaa hogaamiyihii ugu horeeyay kooxdan ama wax badan u qabtay sanado badan joogay. Kulankiisii ugu horeeyay waxa ka adkaatay kooxda Sheffield 2 gool looga adkaado. Kulankiisii furitaanka oo ugu horeysay kooxda hogaamiye. Macallimiin badan ayaa ka dambeeyay oo kuwa ku meel gaar ahaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa guulo gaaray. Ten Hag ugu dambeeyay kulankiisii ugu horeeyay kooxda Brighton ayaa ka adkaatay kulankiisii ugu horeeyay kooxda maamulo horyaalka Premier League. Marka kulamadooda koowaad macallimiinta natiijooyin wanaagsan ay keensanayeen, qaarkood barbara ay ahaayeen, qaarna waa laga adkaanay. Mar haddii macallimiintu kulamadooda ugu horeeyay guuldarooyin oo ku furanayeen, qaarkoodna ay adkaanayeen, Almiron caawa maxaa laga sugi doonaa? Waa la arki doonaa. Muhiimadda guusha kaliya ma aha, laakiin wax la sugi doono waxay tahay qaab noocee ayuu kooxdu u ciyaarsiin doonaa, ma soo celin doonaa hab ciyaareedkii iyo weerarkii iyo kulamadii halista ah ee kooxdan ciyaari jirtay. Reer Manchester waxay sugi doonaan gambarka ayaana u yaala dhammaan kooxaha kalena gambarka u yaala si ay u arkaan macalinkan rikoorka wanaagsan kaga soo tagay kooxdiisii Sporting Lisbon.